Assalaamu calaykum. Ukraine iyo Ruushka. Dagaal ma ka qarxi doonaa xuduudda ay wadaagaan dalalka Ukraine iyo Ruushka? Waxay ahayd dood socotay barihii ugu dambeeyey kadib markii sida ay rumaysan yihiin sirdoonka reer galbeedku uu Ruushku soo dhoobay xuduudda ula wadaagay Ukraine meel u dhow in ka badan 100,000 oo askari iyo taangiyo dagaal, diyaaradaha dagaalka oo kala duwan iyo tobanaan madfac oo kuwa dagaalka ah. Haddaba dagaalku sidee ayuu u ekaan karaa? Waa waxyaabaha la isweydiinayay waqtiyadii ugu dambeeyey. Waxaan ognahay in 2014 kooxaha gooni-goosadka ee bariga Ukraine iyo Ukraine uu dagaalku dhex maray halkaas, kadibna Ukraine ay aragtay hal mar iyadoo gobol dhan ama dhul dhan oo ka mid ah waddanka Ukraine lagu daray waddanka Ruushka. Cabsida ugu weyn ee Putin uu ka qabo waddanka Ukraine iyo sababta keliya waan eegi doonaa ee uu isugu dayay inuu dagaal ugu qaado waddanka Ukraine. Sirdoonka reer galbeedka ayaa rumaysan in haddii Ruushku isku dayo inuu dagaal iyo xoog ku qabsado waddanka Ukraine, inuu dagaalkuna u sii gudbi karo dhinaca Yurub maadaama ay xuduudo wadaagaan, in halkaas bariga Yurub uu dagaalo ka qarxi doonaan, sidoo kalena ay iman doonaan malaayiin qaxootiya. 2014 colaadii dhex martay dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa ku dhintay 14,000 oo qof iyadoo ay ku barakaceen ku dhawaad 1.4 milyan oo qof. Waxay Ukraine aragtay iyadoo hal mar magaalooyin waaweyn, caasimado warshado leh, dhul dhan madaaro, gebi ahaan dhulkii uu aayar Ruushku qaatay calanka Ruushkana laga taagay hal mar, taas oo ku noqotay laf dhoon gashay. Dabcan Ukraine kuma jirto NATO ama isbahaysiga NATO, saas awgeed wadamada reer galbeedku waa suurtagal inay saaxiib dhow leeyihiin ama xulafo dhow ay leeyihiin Ukraine, laakiin ma soo weerari doonaan ama markaasi ma difaaci doonaan hal askari oo ka mid ah ciidamada reer galbeedka ama Mareykan markaasi wadamadan kale ee reer Yurub ma aadi doono furimaha dagaalka. Sidaas awgeed waa waddanka Ukraine in xoog lagu qabsaday iyo in kale. Ukraine waxay leedahay ciidamo dabcan aad u badan, waxayna kaalinta 25aad kaga jirtaa quwadaha caalamka. Ciidankeedu wuxuu kor u dhaafayaa 1 milyan oo askari, iyadoo 900,000 oo askarna dagaal ay galaan diyaar ay u yihiin waddanka Ukraine. Sida muuqaallo laga soo duubay oo ay warbaahintu faafisay ay xaqiijinayaan, magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine waxaa ka muuqda in ay dadku raadsanayaan gabaad ay ka galaan weerar cir iyo dhul ah oo Ruushka ku eekeeya dalkaas. Inkastoo ay difaac leeyihiin, haddana waxay noqotay maadaama Ruushku aan dabcan ognahay waddanka labaad ee quwadda caalamka in ay suurtagal tahay in uu mar walba weeraro. Haddaba maxaa Putin ku diray dhiigga bini'aadamka? Muxuuse ku sababayaa in uu waddankan Ukraine ee dariskiisa weeraro? Kremlin-ka waxaa horyaala faylal fara badan oo military haddii loo fulin waayo ballanqaadyada NATO ee markaasi ay ku doonayso in aan waddanka Ukraine uusan ka mid noqon xulafada NATO. Arrinkan waa laf dhoon gashay ay ku tahay madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin. Waa waxa ugu badan ee uu ka cabsanayo iyo sababta uu dagaal u qaadi karo iyo dandaansiga ka dhanka Ukraine. Talaha ridada dheer ee NATO haddii lasoo dhigo xuduudda ay wadaagaan wadamada Ukraine iyo Ruushku, si toos ah ay u gaari karaan gebi ahaan caasimadaha sida Moscow ee waddanka Ruushka, waxayna ku noqotay waxa ugu badan ee uu ka cabsado madaxweyne Putin oo ahaatay in uu ciidamo duldhigo ama si ay noqotaba in uu weerar ku fuliyo. Washington Mareykanka ayaa sheegaysa in Janaayo ay ciidamada halkaasi kor u sii dhaafi karaan, gaari karaana 175,000 oo askari dhammaadka Janaayo. Waa waxa ugu badan ee dagaal laga cabsanayo quwadaha caalamku ay soo fadhiyaan, inkasta oo wada hadallo ay leeyihiin dhinaca xulafada NATO, Mareykanka iyo Ruushku sidii khilaafka loo yareyn lahaa, xal diblomaasiyadeedna loo gaari lahaa. Laakiin waxaa xalka diblomaasiyadda hagaldaacinaya ama sii adkaynaya ciidamada xuduudda dhooban ee aadka u tirada badan. Sida ay sirdoonka reer galbeedku sheegayaan, ciidamada xuduudaha ku sugan ee aadka u faraha badan ee Ruushku soo dhoobay waxaa ka dhiman sida saadka ciidamada saadka oo aad u badan iyo sidoo kale garoomada diyaaradaha, bangiyada dhiigga ee ciidanka ee loogu talagalay haddii ay dhib fara badan soo gaadho ama sideedaba loo baahan yahay in loo diyaargaroobo, taas oo muujinaysa in ay wax badan ka kala dhiman yihiin Vladimir Putin si uu dagaal u qaado. Dabcan inta badan waxyaabahani waxay u muuqdaan in uu dhoolatus ku sameynayo ama markaasi uu muujinayo in uu mar walba qabsan karo Ukraine.
waxaa sidoo kale jirta in uu doonayo waddanka ruushku in laga joojiyo dhoolatusyada military ee ka dhanka ah waddankiisa, maadaama inta badan ay wadamada reer galbeedku ay xaqiijiyeen in ay waddanka Ukraine uu xaq u leeyahay madaxa bannaanidiisa. dabcan waana sida ay tahay, laakiin arrinka xaaladda si adkeyn kara mar walba ayaa ah ciidamada fadhiya markaasi goobta xuduudda u dhow. ruushka ayaa doonaya in loo xaqiijiyo inaysan Ukraine marnaba loo ogolaan doonin inay ka mid noqoto isbahaysiga NATO, kaas oo u arko khatar cad waddanka ruushku in ciidamo joogitaan ah waddanka Ukraine la keeno saldhigyo military, taasoo cabsida ugu weyn iyo sababta keliya ee uu doonayo inuu Putin u weeraro waddanka Ukraine intaas oo kun oo ciidanna uu soo duldhigo. NATO waxay ku adkaysanaysaa inay tahay isbahaysi difaac oo aan khatar ku ahayn waddanka ruushka, laakiin xafladda ayaa sidoo kale si cad u sheegtay inay aaminsan yihiin in Ukraine ay xaq u leedahay in ay ka go'doonto markaasi ay go'aan ka gaarto qaran madaxa bannaan oo aysan diyaar u ahayn in ay ruushka siiso diidmada qayaxan ee mustaqbalka Ukraine. dabcan haddii waddanka ruushku qaado awood military, waana waddanka labaad ee adduunka ugu awoodda badan. sidaas oo tahay haddana waddanka Ukraine waxa kaalinta 25aad kaga jira quwadda caalamka. ciidanka Ukraine waxay ka badan yihiin 1 milyan oo askari, 900,000 ayaana diyaar u ah in ay dalkooda difaacaan. waxaan eegi doonaa xaaladda wadamadaas halkay ku dhammaato. inta badanna wadamada reer galbeedka waxay ka walwalsan yihiin haddii xoog ku qabsado ruushku waddanka Ukraine in ay ku xigi doonaan dalal kale oo reer Yurub ah, taas oo cabsida ugu weyn ay wajahayaan sirdoonka reer galbeedka ee ka faalloonaya kana baaraandegaya waxa uu samayn karo waddanka ruushku.